dhowr shay baa u diiday waxaa ka mid ah horta dhaqaale la-aan waa jirtaa oo qofka dhalinyarada dhaqaale ma haysto waxbaa lasoo baraa waa isagii ama iyadii baa la rabaa inay shaqayso marka fursadii shaqada ay ku heli lahaydna dee waa isla ognahay inta badan ma jirto anna waa soo maray laftigeyga waa soo arkay rafaadkaas oo maanta oo dhan buuq aad la wareegayso oo marba aad hay-ad albaabkeeda istaagayso oo waa iska jirtaa civic educationka sidaan hadda sheegnay oo kale isku duubnida dhalinyarada iyo fahamka iyo wacyiga iyo isagana waa iska hooseeyaa meeshiiyo ay ka jirto musuq maasuq iyo patronage qofka hebel easy shaqadan hebel igu dhiib qof gurigiisa iska joogo oo dhalinyaro ah ama reer hebel darteeda ha ahaato ama uun saaxiibaanahay ha ahaato wixii si qaab daran loo bixinayo iyo amni darada dalka ka jirta oo safarada iyo wixii meelaha qaar haddii tusaale ahaan Puntland ay roon tahay meelo badan oo waxaa jira aan isu socod jirin oo dadku aysan isu tagi karin marka iyo mentorshipna male yacni dad usii diyaariyay arrintaas oo ay ka dhaxlayaan wax jiray oo la leeyahay 30 sano ay soo jireen 40 sano ay soo jireen marka dhalinyarada jiilka cusub baa hadda meesha sii galaysa waa la sii diyaariyay raggii awal ku jirayna waa sii weynaadeen kuwaana galaya la leeyahay oo loo sii diyaariyay dhalinyaradana ma jirto marka inta badan waa uun dad xilli dagaala dhashay waxna aan hayn shaqo hayn system corrupt ah oo iska rafaadsan oo baalkii aana isaga dhex jira amni darana ay meeshii ka jirto iyo favoritism oo hebel waxasin hebel si ah waxaasoo dhan marka niyad jab iyo ayay ku ridayaan waxyaabaha keenaya road blocks kay ka mid tahay in fikirka noocaas dhalinyarada oo ay dareemaan inaysan waxba qabsan karin oo meel lagu badbaadayana aysan ahayn meeshan oo in laga cararo uun ay tahay wajiga xalka kaliya oo furan